waxaanu ku soo gudbin doonaa wax ka ogow taariikhda dadkii soo maray ee iyagu caalimka ahaa. Sufyaan al-Thawri waxa uu ahaa caalim, tafiiq, muxadis, caabid saahid ah oo ka mid ahaa culimmadii salafka, waxaanu ahaa mid aada ugu fogaada madaxda iyo la shaqayntooda. Waqtigiisu wuxuu sii xoogeysanayay dowladdii Cabbaasiyiinta ee xukunka xoog kula wareegay, waxaana magaalada Kuufa ee dalka Ciraaq ugu yimid Abu Jacfar al-Mansuur ahaa khaliifkii labaad ee Cabbaasiyiinta. Abu Jacfar waxa uu ahaa manaxe caqli adag, qofkii uu fahmi waayena oo nafta uu ka jaro. Dhinaca kale waxa uu ahaa dariiqaan gabyaa si wacan loo baray diinta yaraantiisa. Wuxuu u yeeray Sufyaan wuxuuna ku yidhi, magaaladan ayaan qaali kaaga dhigaya. Sufyaan wuxuu yidhi, qaban maayo amiirulmu'miniintu, haddana waan ku dili ayuu yidhi. Abu Jacfar waxaa doonta fal ayuu ugu jawaabay Abu Sufyaan. Abu Jacfar wuxuu dalbaday qalabkiisa dadka uu ku warami jiray, wuxuuna seef halmar ah goysa ay weliba iyo jadli dhulka loo dhigay kan la barayn doono. Sufyaan markuu arkay alaabtii loo keenay iyo inuu dhab ka tahay dilka ayuu yidhi, waan qaban balil ay berri si aan usoo diyaargaroobo xilka si aan u qaban lahaa. Orad adoo faylashaada wata imow ayaa loogu kala tegay. Sufyaan habeenkii ayuu guura ku cadeeyey, halkaa iyo Yaman ayuu abbaaray. Intii uu dhexda sii socday waxaa ka go-ay nooligii, gob iskala weyn iyo inuu dad baryo ayuu ahaaye. Qolo beeraley ah ayuu ku yidhi, muddo bil ah aan idiin shaqeeyo si aad ujiro u heersaan ii siisaan. Sidaasna ayuu reerkii ugu shaqeeyay, beertana ku shaqogalay. Maalin dambe ayuu wareystay ninkii beerta lahaa ku yidhi, xageed ka timid? Wuxuu ku yidhi, Kuufa. Wuxuuna yidhi, timirtan ee tan Kuufa keeba macaan? Wuxuu ku jawaabay Sufyaan, ma sheegi karo, oo tanina weli ma dhadhamin. Waxaa yaabay ninkii beerta lahaa, sida ku dhacday beerta aad maalin walba ka shaqayso inaadan miraheeda cunin. Ayuu ku yidhi, heshiiskani kuma jirin in miraha iska cuno ee aad juuro cayiman sidaad ii siiso baan kula heshiiyey, ayuu ugu jawaabay Sufyaan. Ninkii oo la yaaban damacnimada iyo dhowrsanaanta ninkan ayuu yidhi, walle adiga Sufyaan iyo Thawri farqi ayaa idin dhexeeya. Sufyaan ayaa iska aamusay. Maalin dambe ninkii ayaa Sufyaan keenay gole dad ay isugu yimaadeen si uu tuso qowsaarka aaminka ayuu helay. Ninka dadkii meesha joogay waxaa ka mid ahaa oo aqooday Sufyaan, waa ninkii la raadinayay iyo qabta ayaa ka dhacday. Sufyaan cagtiisa ayuu ku baxsaday mar kale. Abu Jacfar markii uu xaqiiqsaday inuu baxsaday Sufyaan ayuu amray geeriyin nolol in mid loogu keeno. Dhammaan dhulka muslimiinta oo dhan ayaa fariino loo diray, miyi iyo magaalaba, bad iyo beriba. waxaa la gaarsiiyey in loo qabto nin burcad oo kale, farihiisana la kala hado. Khaa'inul waddan cidna aan hambayn ayuu amiirkii go-aankiisa ku qaatay. Sidaas ayana waxaa suuqa ku sheegay in qofku dunida ku nool Abu Sufyaan ka tugsan uusan jirin. ninka beerta leh warkaas ayuu maqlay oo keentay inuu yiraahdo, walle adiga Sufyaan laba ayaad kala tihiin. walaal baleek sida dadka mansabka haya sida fudud qofka dadka ugu wanaagsan oo u dhigi karaan kan xun uga xun. culimada siyaasiyiinta kuwa kale caanka ah dadkay ku caayaan inay u qaadan siday u dhigeen ilaa aad ka hubsato waxaa tahay ma jiro qof macsuum ah. rag isqabtayna inuu si sumcad dilo waa inuu sunno u soo jiraa. iska hubi qofka lagu caayay inuu run tahay. waxaa lagu sheegay iska hubi eedeymaha siyaasiyiinta ay jeediyaan siyaasiyiinta kale, tan culimada u jeediso culimada kale. kalama aqoon-yahan ku duro mid jaahila, qayb ka noqo miskiin dulmana ah ceebeyntii adigoon isogeyn. maxaa ka wanaagsan badan kelmadda alle uu yidhi, naadimiina facaltum calaa maa tusabbixuu bijahaalatin qooman fatusbixuu an tafatinuuna bimaa faasiqun jaakum inamal kuwan imaamka lahow haddii uu faasiq war idin keeno iska hubiya inta iidaan u dhib u geysan idinkoon ogeyn oo aad warkaas ka shallayn wixii aad fasheen.
qormadan aanu kusoo qaadanay boggeenan maanta barkulan media oo kaga hadlaynay wax ka ogow dadkii adduunka soo maray ee iyagu cilmiga iyo caqliga u saaxiibka ah ee hogaamiyaasha diintana ahaa, weliba gaar ahaan dadkii cusmaaniyiinta ahaa. qaybtan maanta inta aynu kusoo gabagabayno qormadanna waxaana kasoo xigtay qoraaga caanka sidaan idiin sheegba cabdulaahi nuur maxamed colombo ahna waryacaan oo laga yaqaana geega soomaaliya.